Soomaalidu dadwada simaane محمد كاهني ورا هذا والله كيف خير انا المصيعه والله عاد بلو انا كلها الحالة وضعك نظورة والله ورد حالة دي انتي هروح بصوري ما فعسنا حاجة بوك لان عذاب الفربدان بقى كتشرة شالك مركا قولة الحسبية دور نجي واحد اسمه والله شرع يبقى حضر الحسبية ما تشرع مبالاتيش كان حاجة بوك لان كتشرة انا بوك شرع حتى صاحب ما وقت قال الله صعودات يا اخي ما يوحبها الدساك من الصعودات وحبها مغشان والله وحبان حتى وحبان مقمقل النهي والله وحبان الصعودات وانا قلبت المظاهرات بان الشباب ابونا جعلية اطانا رئيس صلاة لله وحي معاته صوت صورين الناقل الدلي وحاس اليين حتى دمر بان الدلي مركا وحاسا دوننا انا قول هنا نبين ان ادوكي بوحكنا كدعدعيين وسومو بيت مرتبان كده ينتي دوتاي صوص عليه انه فوتا فاين هرأها والله تقرأ هو فوتا فاين هرأها كان انك كان هاي صوص عليه waxaan ku weydiiyey korneel maxamed kaahin oo ma jirta wax nugaasha reer nugaaleedkaad xidhiir la samaysee oo isimadooda yaa baxriiqaad isimada reer nugaaleedka maxamed kaahino horta waxaanu la xidhiidnaa garaasaayadan waanu la xidhiidnaa imika hay ko marka nugaal la joogada waa garaadka ugu weyn waa runtaa about 2 weeks agoona waxaanu halkan ka dirnay wafdi uu isaga laftiisu soo diray oo uu puntlandka ka soo diray oo ka soo diray dameeye eriyada nugaal ka soo diray oo halkan u soo diray oo about 22 casho halkan joogay oo yaa hogaaminayay wafdidaas waxaa hogaaminayay daylayo inankiisa ku jiray oo waxaa ku jiray qoladii cabdi maxamuud reer garaadkii isaga uu ahaabaa ku jiray oo wafdi gebigooduba qolada faamiligiisa u badan qolada maxamuud ugaaryahanka laaneeye axmedkana ay cidhisaga jirtan nin dhiilood la yidhaahday oo puntland beri hore wasiir ka ahaan jirayaba maxaanku dhahdaayay ku jiraan may maqlaysa waa ku maqlaya qoladaasaa markay iminka meeshii tageen shirarkii qoladaasi ay wadeen puntlandaysan dagaalka buuhooda iyo waxay doonayeen in qolada reer nugaaleed ay tagaan ayaa maxaanku idhaahdayay arrinkii joojiyey oo yidhi anagu dagaalkaan kuma jirno waxaanu ku dhex geli karnaa waa arrin nabadeed dabadeedna arrinkaasaa la doonaya iminka in la burburiyo oo qolada puntland faraana habeenkii dhaweydu hadlaayo weyninkii arkayay marka idinku arrimaha qaadan kartaan waxa weeye qolada ugaaryahankii xaggaa joogta bal wilkarayn maantaan la hadli doonaayo odhanaya diina xaggaa jooga yaa lala hadli karaa maya horta waxay ku badan yihiin gobol kaley ku badan yihiin oo minnesota la yidhaahdo anagu miami iyo california iyo meelahaasaan nahay marka insha allah adigu laakiin xidhiid odayaal iyagaanu xidhiid samaynaa marka waxaanu kaloo anagu aanu jaariyad ahaan ka shakisannahay isaaqa iyaga meeshan jooga kalsooni inta leeg baad ku qabtaan nimankan dhulbahante khaasatan kuwa jaamacsiyaad ee ku jira somaliland horta way fiican yihiin soo saar aad bay u wanaagsan yihiin haya waa ogtihiin nin daraadahoo jaamac la yidhaahdaa waa kii idin yimi waa maqleen maraykanka iyo awoodda waraysigan waxaa si wada jira isaga leh shabakadaha booqole.net iyo jidbaale.com marka qoladaasina way ku kala qaybsantay exactly waa ninka abaabula maxaanku dhahdaye hawshan qolada exercida waa ninka lacagta usoo gura waxaa jira nin kaley walaalay yihiin jaamaca lacagta usoo gura jaamac siyaada lacagta usoo qora waxay dufaadinaysaan website-kan siday dufaadinaysaan xaafidun xitaa mar hore isagoo garamadii isku xageysiinayayba maxaanku dhahdaye ayaad ku arkaysaan websiteka ii sheeg waxaa la yidhaahdaa websiteka waxaa la yidhahdaa SSC haye
marka SSC buuhoodu leeyahay SSC Minnesota leeyahay SSC meelahooda badan buu raacaa laakiin waxa weeye in general waa SSC marka annaka ka gaabinay oo ninkii garaadka ay ninkaa isku shidayeedoo maxaan ku idhahdaa hawshii soo dhamay ay hagaagsan tahay doonayadu halkan isku buruuf garayo garaadnimadiisii ka diyaarsado ayaanan si wanaagsan u handalgaraynina qolada maamulka ugu taaglaanahay waayo maxaan ku idhahdaa ninka maxaan ku idhahdaa minister of commerce wasiirka ganacsiga laba waa ilmaadeen iyo labada walaalaha ahi xaggaa jooga oo wadaado oo qolada weliba extremiska ayuu u xaqliyaa marka kan wasiirkiisi kan wasiirka wuxuu u xaqliyaa ninka halkan jooga London buu sharci ingiriisa buu haystaa waa reer London marka anaku ayadooda waabaan isku qabsanay abtina waa nuu nahay waxaanu ku diri waranaku jaamacsiyaad karaanta abti u kala samayn mayne laakiin ninka garaadka haysa waa ninkan SSC lacagtiisa da ururinaya haye marka maxaan ku idhahdaayey waxa ay u baahan tahay marka idinku qoladaas anaa la hadlayo qolada isaanka ugaariyahan ee halkan joogtaan la hadlayaa marka waxaan ku odhanaya qolada Minnesota joogta ragna haarta oo aan ku kalsoon tihiinoo hawshan ku jira haddii aa haysaan maya annagu waxaanu samaynanaa jaariyad ahaan isaaqayagii hadda meesha horta ragga aniga hadda ugu yaraa afnaa dheer waraaqaan qorayaa yani sawiradan iyo waxan ay soo geliyeen iyo waxaan ay leeyihin waxbaa la xaasuuqa horta waan beeninayaa oo reeri hadda qoraaladii waan diyaarsaday berri baan diraya maanta holiday baanu ahay berri baan dirayaa marka ruuxdaan anaa furaya idinka un waxaa laydinka baahan yahay wixii gudaha ka socda siyaasadda inaad ogaataan ninka la yidhaahdo in candaashe ee jaamac siyaad ee ciidamada wata isaga kalsoonida ciida kalsoonida intee leeg aad ku qabnaa waa timaanin dhaweyd mid iska goobta cali karaya markaysi wuu ka fiican yahay kuwaa kowda haye bikiingi wahanmii waa wanaagsan yahay laakiin hadda culays badan lagu haya oo xaggeena ah way xagga kale culays badan lagaga hayaa xagganaanu doonayna marka inaanu culays ka saaro marka anagu waanu wada xidhiidnaa culays fara badan baa laga saaraa nimanka xaggan wasiirada ee dowladda ku jiraana waa niman khayr beelayaalaho ragga hadda xanaanayntiisa iyo wixiisana aan xanaanaynin marka aniga barnaamij wada iminka aan leeyahay maxaan ku idhahdaay ninka daha laga wahayo ilaa haddii kale waa laynaga kaxaysanayaa inta ninkaa laga warhayo oo marmar ha loo yeero oo bal iminka barnaamijkaasaanu wadnaa laakiin ma xuma inamadeennana wuu laxris jiraa maxaan ku idhahdaay ciidanka ahee weliba ereyada laaska waxaa u badan niman reer burcaabaa u badan oo maxaan ku idhahdaay jooga haye horta raggii hore ee qadiimka ahaa meesha saad adigaa ku jira nin yacni inkastoo raggu ay badin haddana raggaanu ku qabsoonnay haddaanu isaaq ahaan nahay ninka ugu weyn baa tahay waxa weeyaan dowladan hadda dhisan yani madaxda ku jirta ee habtiga nimanka somalilaanta degaan niman yani kalsooni aan ku qaadan karno golaha wasiirada aanu ku qanacsanahay ma aha wallahi dad badan baa sidaasa ka wdan haye raggii dhayhaadka haye somaliland daradka haye ilaa berigii u horreeyey ula soo jeefay maaha annaka laftaydu markii berigii duwato dhismaha la dhisaayo qolada ugu badane aanu hawshooda ka hadalnay ee maxaan ku idhahdaay laysku qabsaday bay ka mid ahaydo aniga waabaanu isku afdaxno waxaan ku nidhi okay nimanka isaaqa cidii lahadaha laga qaato laakiin maxaan ku idhahdaay nimanka maxaan ku idhahdaay nan isaaqa bahasha muddo dooray soo dhismayda ragga laga qaadanaya waa inay aqaadaan ragga la taaban karo oo daymanka way labaatinsatay somaliland biyadan noqoto maxaan ku idhahdaay dee marka hawshoodu ay diyaarsan tahay oo ilaa beriga aan leexanin marka maalin walba intay toban jeer yimaadeen haddana noqday baanu halkan ku haynaa oo miilan oo waxa kamida kelimi burjirka warfaafinta laga dhigay waa ninka in xaafada soo maaha waa ninkan hadda afkayga kala baxday ninkaasi ma kula tahay inuu la soo xidhiiro madaxda majeerteen ee ugu waaweyn ee maraykanka joogta oo aanu warkiisa hayno
wax xaaraan ma jiro ninkaas xaaladiisu anagu maalin dhaweyd anigu waxaan markhaati ka ahaa professor gadabiirsiya oo la yidhaahdo ina samatar oo ku kacsan somaliland kuwa walaalaha mataqaana oo aan la soo marsin karin baysaaq ninkaas teleconference uu ku jiray buu la soo xidhiiray waana la wacay wuuna soo galay in cadda xaabsada nin la aamini kara ma aha waan ogni nin la aamini kara ma aha in adeero waxaan kaa codsananaa sirdoon ahaan siiraanyo wadan laga gaadsiinaysaa anigu waxyaalo badan baan ogahay somaliland iyo isaaq duulaan baa daarood kusoo yahay run baan kuu sheegayaa hawiyana dabaday ku wataan mafaate may maqlaysaa waan arkayo horta anigu sirdoonka nin kale maxamed nuur la yidhahdaa inoo hayo anigu xilkaa ma hayo ka oday haye waanaan idinsoo xidhiidhinayaa aniguna markii fariintaadii maalintii dhaweyta waan gaarsiiyo shalaanu ka hadalay oo layidhi miidiyaha waxaynu ka qabanayno iyo sidaynu uga hadlaynaa madaxweynaad gaarsiisay waan gaarsiinay weliba shir labada xusbiya mucaaridka iyo xusbiga kulmiyaba uu lahaa ayaanu fadhinay dabadeedna coordinationka miidiyaha 3 xubnood 3 xusbiya ku xilsaan horta waa runtahay waxa weeyaan nimankii somalilandarka rasmiga ahaa dowladan kuma jira ninkan ina haabsada ee marba dhinac u cararaya iyo nimankan kale ee wadaadada ah ee aan dhaqaalaynaya raggan ciidanka ee meesha ku jira haddii aan la dhaqaalay raggana waa iska soo yaacayaan waa dadka idinku u mootaa waan noognahay 1.4 culayska saaraysa haye waxa weeye soofaar somalilandu waxa ay albaabada si fiican imika inooga xiran oo 24 saacadood hawsheeda laynagu wadaa oo qoladan al-shabaabka iyo extremiska kuwa warbixino badan baanu ka qoranaa waana ka hortaganaa waxyaalahaas oo dhan soomaad garanin sababta u suurageli weydeen waxa weeye waa administrationkan labaatan tirsaday iyo beelahan wada hadlay ee hawshan nabadda ka hadlaya waxa weeye somaliland waxaa imika ka hirgeli kareelaa hawlihii ay gudeen qoladan extremist iyo al-shabaabada ah haye sababta kaliya keenaysana waxa weeye waa nabadda umada dadweynaha ay ilaalinayso iyo systemkan arganta iyo maamulka ka hirgalay ka imika la gelinayo puntland faroole iyo sheekh shariifka madaxweynaha ah iyo ra-iisul wasaaraha saddexdu waa iskaga mid oo iyagaa wax soo siiyo qolada booqoodreed waxaa lagu ilaalinayaana SSC maahe waa al-shabaab marka halka ay qolada la sogtaan idinka maqlaysaa ay u dhagatilaysan tahay waxa weeye meeshan waxaa lagula dagaalamayaan waa nabadgelyada iyo maamulka ayaa la dhisaya oo dadkana waxaa ka hirgalay waa maamul la-aan maya waxaan samaynay intaasoo dhan haqaadileeda waan qoray maanta holiday baanu ahayn berito hadda marka waagu noo bariyo iyaan waraaqaha diranaa meel walbana qasil kasta xiraan annagaa kasoo furana laakiin waxaan kaa codsananaa in laga taxadaro nimanka weliba kan wasiirka warfaafinta sheeganaya kan nimankan madaxda ee hadda ku jira meesha ee ganacsiga iyo kan wasiirka warfaafinta sheega nimankaasoo dhan laga wada taxadaro codkaaga ma maqlaya maxamed oo inaad waa ku maqlaya Joe Biden iyo kan assistant secretary for Africa qolyahaas aada u bilisgareeya maya insha allah binilah kan waa ballan hasta ardayda jaamacadaha oo ay u qabteen shir annaguna waxaanu la ballansannahay sabtida inaanu la shirno aywa waanu ka wada hortaganaa wax walba idinkana waxaan idinka codsananaa inaad wixii isdaldaloo lahaa aad wax ka qabataa inaad gacaliya aad baa koraya hadalkaa inuu aad iyo aad baad umahadsan tahay waad mahadsantahay aad badan Soomaalidu dad wada simaane